waxay tiri ii soo dhawow Tingu, maxaad iga baqaysaa aniga? ii soo dhawow, waxaan ku dareensiin doonaa jacayl. wuxuu yidhi maya, sixrool ayaa tahay adiga, ma rabo inaan dareemo jacayl. waxaad ugu khiyaantay quruxdaada, waan ka xumahay, waa dhintay, hadda maxaan sameeyaa? waxay tiri dhegayso, xageed aadaysa adiga? dadkii xaafadda degnaa waxay ku qayliyeen ayagoo dhahaya Tingu, si dhaqso ah guriga uga soo bax, haddii kale dhiiggaaga ayay cabaysaa. wax yar kadib waxaa orod guriga uga soo baxay ninkii Tingu ahaa, isagoo ku qaylinaya waa dhintay ma nooli. si qaldan ayaan idiin fahmay, waan ka xumahay, badbaadiya. ugu dambayntii Tingu wuxuu ka soo baxay guriga. wuxuu yidhi maxaad iigu sheegi weyseen qofkan inuu sixrool yahay? waxay yidhaahdeen maxaad noo eedaynaysaa annaga? adigu waxaad ku waaneed jacaylkeeda, maxaan kuu samayn karnaa annaga? mid ka mid a wuxuu yidhi hadda waa inaan ka fikirnaa wixii aan ku samayn lahayn qofkan sixroolka ah. waqti badan kuma hayn karno meeshan iyada. haddii ay hal mar bannaanka soo baxdo waxay cabi doontaa dhammaan dhiiggeena. waa inaan isbadbaadinaa, aan u kaxayno iyada meesha wax lagu caabudo. si kastaba ha ahaatee waa in aan samaynaa arrintaas. laakiin sidee ku samayn karnaa midaas? sooma adka. haa, anaa fikrad haya. dhammaan dadkii xaafadda degnaa waxay isku raaceen inay Tingu ka dhigaan qof reer aakhiraad ah, sidaasna uu ugu tago gabadha. Tingu wuxuu yidhi maxaad samaynaysaan? maxaa aniga iga dhigaysaan qof reer aakhiraad ah? saaxiib Tingu, waxaad aadaysaa iyada, waxaadna iska dhigaysaa qof reer aakhiraad ah. waxay kuu malayn doontaa qof ka mid a tiimkeeda, wayna ku aamini doontaa anaa humudaas. Tingu wuxuu yidhi maxaan sameeyaa hadday iyada i fahanto aniga? saaxiib Tingu, hawalwelin, waxba ma dhici doonaan. hadday iyadu ku ogaato, qof kasta ayaa ku caawin doona adiga. intaa kadib Tingu wuxuu aaday saaxiradii, isagoo iska dhigaya mid ka mid ah asxaabteeda ama tiimkeeda. wuxuu yidhi haye walaal, isoo raac aniga, halkan waxaan u imaaday in aan adiga ku caawiyo. inakeen oo aniga isoo raac, haddii kale dadka xaafadda degan way ku dili doonaan si wadajir ah. waxay tiri sidee ii dili karaan iyaga? anigu kama baqayo cidna, imana dili karaan. dhammaantood maanta ayaan cunayaa. wuxuu yidhi xaafaddan waxa degan 5 ilaa 6 qof oo keliya. wuxuu yidhi aniga isoo raac, waxaan aadi doonaa xaafadda nagu degan. xaafaddaas waxaa ku nool dad aad u badan, labadeennana waa wada ugaarsan doonaa inakeen. naagtii saaxiradda ahayd waxay aamintay Tingu, waxaana isku diyaarisay in ay Tingu raacdo. ugu dambayntii labadooda waa ay soo baxeen. Tingu wuxuu u kaxeeyey waddada macbadka si uu macbadka u geeyo iyada. Tingu wuxuu niyad iska yiri Ilaaha u badbaadi, hadday ogaato in aan Tingu ahay, cayrinka ayay igu cuni doontaa maanta. labadooda waxay soo gaareen meeshii macbadka ahayd. run ahaantii waa ay la yaabtay in ay macbadka aragto iyada. waxay tiri waa maxay waddadan aad isoo marsiisay? wuxuu yidhi waxaan ku marsiiyey waddada saxda ah, waxaana ku keenay meesha macbadka ah, anigu waan ku khiyaamay adiga. aad ayay u argagaxday markii ay aragtay meesha macbadka ah. kadib Tingu wuxuu ku tuuray dhulka, isla markiiba waxaa bilowday leer ka soo baxaya meesha macbadka ah. gambalaalkii meesha ku xirnaa si otomaatig ah ayuu u bilaabay inuu isgaraaco. waxay tiri waa dhintay, xaggee la i keenay aniga maanta? ma saxna in aad ikhyaanto aniga, waad ikhyaantay. meeshaas ayay ku dhimatay naagtii saaxiradda ahayd, waxayna isku beddeshay mid dambas ah. dadka xaafadda degnaa waa ay ka takhaluseen saaxiraddii. halkaas ayay ku dhammaatay sheekadii.